بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وانا idin salaamay asxaabta ku xiran kanaalkeena caawiye maanta waxaan ka hadlaynaa buug aad u qiimo badan buugga magaciisu waa Thinking Strategy istiraatiijiyada ama xeeladaha fikirka buuggan waxaa qoray Dr. Ibrahim Al-Fiqi Allah yarxamu waa mid ka mid ah buugta ugu qiimaha badan ee ka hadla habka uu qofku ugu faa'iideysan karo awoodda maskaxdiisa si uu u gaaro horumar iyo guul waarta buuggan wuxuu diiradda saarayaa dhowr mabda oo muhiim ah oo ku saabsan sida loo soxo fikirka loo xaliyo dhibaatooyinka loogu hortago caqabadaha loona gaaro natiijooyin waxtar leh buuggan waa hage dhammaystiran oo shakhsi walba bini'aadam ah ku hagaya sida uu fikradaha xunxun ugu bedeli lahaa fikrado wanaagsan Dr. Ibrahim Al-Fiqi wuxuu buuggan ku soo bandhigay xeelado kala duwan oo shakhsi walba ka caawinaysa inuu si habsami leh u fikro uguna gudbo caqabadaha nolosha ee soo wajaha Dr. Ibrahim Al-Fiqi Allah yarxamu wuxuu aaminsanaa in fikirka bini'aadamku yahay awood weyn oo haddii si sax ah loo isticmaalo lagu xalin karo caqabadaha nolosha laguna gaari karo horumar ballaaran Dictorka buuggan wuxuu kugu barayaa qaabka ama habka aad u maamuli lahayd fikirkaaga iyo dhaqankaaga si aad noloshaada ugu samayso isbeddel aad u weyn qodobada ugu muhiimsan ee buuggan qodobka koowaad ahmiyadda fikirka saxda uu leeyahay fikirka saxda ah waa saldhigga horumarka iyo guusha shakhsi walba sababtoo ah qof walba raba inuu nolosha horumar ka gaaro marka hore waa inuu qaataa fikir sax ah waxaad maanta ka fikirto waxay saameyn weyn ku yeelan doonaan waxaad beri gaari doonto sidaas darteed haddii aad jeceshahay inaad gaarto guul daa'im ah waxaa lama huraan ah inaad si wanaagsan u fikirto qodobka labaad noocyada fikirka Dr. Ibrahim Al-Fiqi buuggan wuxuu ku sharxayaa noocyada ay u kala baxaan fikirka koowaad positive think ama fikir toosan waa fikirka wanaagsan ee shakhsiga u horseeda horumarka fikirka wanaagsan wuxuu dubdhaxaad u yahay guusha shakhsi walba wuxuuna u sahlayaa shakhsiga inuu ku dhiirto inuu tijaabiyo waxyaabo cusub si uu u gaaro guusha uu rabo fikirka labaad negative think ama fikir khaldan waa fikirka aan wanaagsanayn fikirkaas oo qofka u horseedi kara dhibaatooyin badan oo saameyn ku leh dhinacyo kala duwan ee nolosha shakhsiga sida maskaxda xiriirka dadka uu leeyahay iyo niyad-jab joogto ah sidoo kale fikirka khaldan shakhsiga wuxuu ku abuuraa kalsooni daro fikirka saddexaad fikirka xalinta dhibaatooyinka fikirkan waa hab maskaxeed oo diiradda lagu saarayo xal u helidda caqabadaha nolosha waa farsamo muhiim ah oo qofka ka caawinaysa inuu si waxtar leh u maareeyo xaaladaha adag una gaaro natiijooyin wanaagsan fikirkan waa awood qof walba uu u baahan yahay inuu ku tababarto waana furaha xal u helidda caqabadaha fikirka afaraad fikirka halabuurka fikirkan waa awood maskaxeed oo ku oggolaanaysa inaad abuurto fikrado cusub xalal aan caadi ahayn iyo habab halabuur leh oo lagu wajaho dhibaatooyinka ama caqabadaha nolosha waa habkaad ugu fikri karto waxyaabo ka baxsan xeyndaabka caadiga ah ee nolosha adigoo adeegsanaya halabuur iyo farsamooyin cusub intaan waxay ahaayeen noocyada fikirka uu kala baxo marka waxaad isku daydaa inaad xakamayso fikirkaaga oo aad qaadato fikir wanaagsan ee ku horseedi kara horumarka iyo wanaagga aadna ka tagto afkaarta xunxun ee kugu rideen iyo jabka iyo kalsooni darrada qodobka saddexaad awoodda fikirka wanaagsan Dr. Ibrahim Al-Fiqi wuxuu si cad u sharxay in fikirka wanaagsan uu leeyahay awood aan caadi ahayn sidoo kale inuu qayb weyn ka qaato caafimaadka jirka iyo caafimaadka maskaxda sida darteed ku dadaal mar walba fikirkaaga inuu ahaado fikir wanaagsan si aad u hesho caafimaad taam ah iyo horumar joogto ah qodobka afaraad ee buuggan waa fikirka iyo ficilka waa laba kelimado laakiin waxaa muhiim ah inay israacaan sababtoo ah fikir keligiisa waxba ma soo korinayo ficil aan fikir lahayna waxaa laga yaabaa inay khasaarooyin ka dhashaan marka qodobkan afaraad Dr. Ibrahim Al-Fiqi wuxuu ku dhahay fikirka iyo ficilka fikirka wanaagsan waa kan kugu hogaamiya samaynta ficilo wanaagsan haddii aad danaynayso inaad guul weyn gaarto ma aan keliyana si fiican aad u fikirto balse waa inaad si dhab ah aad ugu dhaqaaqdo ficilada saxda ah ee ku siin kara natiijooyinkaad u baahan tahay qodobka shanaad awoodda maskaxda waxay leedahay awood aan la soo koobi karin uu Rabbi subxaanahu wa tacaala ku abuuray sidaas darteed fikirkaaga wuxuu saameyn weyn ku yeelan doonaa noloshaada haddii aad maskaxdaada ku hayso fikir wanaagsan ficilna aad raacido waxaad noqonaysaa shakhsi guulaysta ah haddii aad maskaxdaada ku hayso fikrado xunxun fikradahaas xunxun waxay kugu noqon doonaan caqabado hortaagan horumarkaaga qodobka lixaad ee buuggan Dictorka wuxuu ugu hadlay sidee loo bedeli karaa fikradaha qaldan shakhsi walba bini'aadam ah marmarka qaar si qaldan wuu u fikri karaa sida inuu dhaho aniga hawshaan ma qaban karo aniga aqoon fiican uma lihi hawshaan aniga awood aan hawshaan ugu qabto ma lihi iyo wixii la mid ah Dictorka buuggan wuxuu ku soo bandhigay xal si aad ugu gudubto fikradahan xun ee maskaxdaada ku soo noqonaya si aad fikradahan qaldan aad u bedesho waxaa muhiim ah mar walba inaad ku celceliso erayada ku siinaya fikir wanaagsan sida hawshaan waan qaban karaa aqoon igu filan oo aan hawshaan ugu qabto waan leeyahay waan awoodaa inaan hawshaan aan qabto
iyo wixii la midka ah mid weliga xusuusnow noloshu ma ahan mid kaamil ah laakiin adiga haddaad rabto oo aad isku daydo noloshaada waad wanaajin kartaa inta rabbi subxaanahu wa tacaala uu kuu qoray keliya dadaalka ha ka tegin joogtay dadaalka isbeddelka si tartiib ah asagaa u imaan doono casharadaan ka baran karno buuggan noloshaada waxaad ka dhigi kartaa mid ka wanaagsan midaad adiga hadda ku nooshahay adigoo beddelaya qaabkaad u fikirto haddaad ku fikirto fikrado xunxun ku beddel fikrado wanaagsan insha allahu tacaala noloshaada way isbeddeli doontaa horumarka iyo guusha waxay ku xiran tahay sidaad naftaada ugu dhiirigeliso fikirka wanaagsan wax kastood maskaxdaada ka dhadhiciso si dhab ah ay noloshaada ugu muuqan doonaan marka ka fogow fikradaha qaldan si aysan noloshaada u noqon mid xun gebagabadii buugga thinking strategy ama xeeladaha fikirka wuxuu qof walba barayaa sida loo helo xasilooni maskaxeed fikir wanaagsan iyo nolol ku salaysan guul kaliya waxaa muhiim ah inuu qofka fahmo awoodda maskaxda ay leedahay ama fikrada aan ku fikirno siday u saameynayaan nolosheena waxaad ogaataa mar waliba fikirka inuu saameyn weyn ku yeelan doono noloshaada marka isku day afkaartaada mar waliba inay noqdaan afkaar wanaagsan Dr. Ibrahim Al-Fiqi Allah yarxamu wuxuu buuggan ku sheegay in fikirka toosan uu yahay furaha guusha nolosha iyo horumarka joogtada ah insha allahu tacaala buuggan waa buug bedeli doona fikirkaaga iyo sida noloshaad u haysato marka waxaan talahaan idinku soo jeedin lahaa inaad buuggan aad raadisaan aad akhrisataan afkaartiinna hadday tahay mid wanaagsan alxamdulilah rabbilcaalamiin waa sida la rabay haddii xoogaa fikrado xun idinku jiraan aad beddeshaan oo aad ku beddeshaan fikrado wanaagsan insha allahu tacaala buuggana maanta intaas ayaan ku soo koobaynaa asalaamu calaykum